waxaan halkan aan kaga dhawaaqayaa natiijadii golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada ee gobolka Togdheer taasoo qodobka 130 ee xeerka guud ee doorashooyinka xeer number 19/2020 uu jideynayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadnaqonaa marka koobaad in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay hawshii qaranka ay baaxadda lahayd doorashada haddii aanu gundadego xildhibaanada ku soo baxay maanta golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxay kala yihiin sidaan xisbiga UCID wuxuu helay 4 xildhibaan oo golaha wakiilada xisbiga kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan xisbiga wadani wuxuu helay 7 xildhibaan saas bay ku dhan yihiin 15 xildhibaan oo loo kala helay haddii aan si faahfaahiyo xisbiga UCID waxaa soo baxay Faysal Yusuf Jaamac Xaashi Guuleed Maxamed Warsame Salabaan Axmed Carab Jaamac iyo Jamaal Cali Aadan Jaah xisbiga kulmiyana waxaa soo baxay Cabdikariin Aadan Cali Dubbad Amiin Salabaan Jaamac Rooble Nuuraddiin Axmed Dayib Cabdirahmaan iyo Jaamac Abokor Maxamed Mire xisbiga wadani waxaa soo baxay Xuseen Aadan Cabdi Axmed Xasan Axmed Cilmi Geelle Xasan Kayse Salabaan Nuur Warsame Faarax Food Axmed Maxamed Hurre Ducaale Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abokor Axmed Maxamuud Cabdillaahi Jaamac Maxamuud Faarax Jaamac Maxamed todobada xildhibaan baa xisbiga wadanina u soo baxay saasay tiradii ku dhan tahay guud ahaan gobolka Togdheer waxaa ka codeeyay 137,340 cod ayaa la dhiibtay xisbiga UCID wuxuu helay 36,968 oo u dhiganta percentage 26% xisbiga kulmiye wuxuu helay 41,005 cod oo u dhiganta 29% wadani wuxuu helay 59,368 oo u dhiganta 43% guud ahaan marka codka la sugeeyo wuxuu noqonayaa 137,341 cod